kulan ballaaran oo isugu yimaadeen xubnaha weyn oo ka kala socda deegaanada Xaman iyo Xeeb iyo Galmudug ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Xaman iyo Xeeb ayaa maanta ka dhacay magaalada Cadaado. Kulanka oo socday muddo saacada ayaa haweenku waxa ay ku soo bandhigeen sida ay ugu kalsoon yihiin inay hormuud u noqon karaan xal iyo xabad joojin ay dhex dhigaan beelaha ku kala abtirsada maamulada Galmudug iyo Xaman iyo Xeeb. Hindi Axmed Faarax oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda SSWC oo iyadu fududeysay shirkaasi ayaa sheegtay in haweenka labada dhinac ay u soo gudbiyeen codsi ku aadan sidii ay u kulmi lahaayeen labada dhinac isla markaana ay isku dhaafsan lahaayeen aragtidooda ku aadan kaalinta ay ka qaadan karaan joojinta colaadaha iyadoona codsatay in la garab istaago gabdhaha ka damqaday dhibaatada ka dhalan karta sii socoshada dagaal beeleedyadaasi. halkan waxa diyaar ku ah gabdhihii labada maamul haddana waxay diyaar u yihiin gabdhuhu inay ka shaqeeyaan inay kala ceshadaan dadkoodii sababtoo ah waxa ku dhimanaya waa wiilkoodii waa odaygeedii waa adeerkeed waa abtigeed dadkan waxba ma kala aha waa dad shaydaan isku qaaday adinka marka ka maamulahan waxaanu idinka codsanaynaa in aad maxay hayday gabdhahaas aad caawisaan. Maryan Naale oo ku hadashay magaca haweenka Galmudug ayaa sheegtay inay u soo istaageen oo danahoodii iyo reerahoodii uga soo baxaan sidii loo joojin lahaa colaadaha dhiig badan oo ku daatay. armayba nagu fiican tahay labadayada qoys rag iyo naaga inaama nabadda iska raadino oo boogta iska dhayno oo fadhi iyo tanasul isku sameeyno wararmayma noo fiican tahay hayaan isku dayno heshiiskii qoraalkii ugu horeeyay markaan saa ku qorannay meel walbaan iskaga nimid gaalkacyaan dhowr jeer tagnay intaan nimid waad ogtiin baa umaleey madaxweynaha iyo waa dhowr jeer xataa meesha anagu Cadaado waa nimid anoo gabdhaha laakiin midda maanta noo suurowday maalintaas nooba suurowday ruuxii reer qumisa oo danaynayo nolosha qumis ama dadnimada qumis inuu dalha jiro dibadha jiro qurbaha joogo gabar iyo wiil inay ka soo qayb galaan heshiiska qumis. Faadumo Aymo iyaduna ku hadashay magaca haweenka maamulka Xaman iyo Xeeb ayaa sheegtay in dhinacooda ay u adkeysan waayeen sii socoshada colaadaha ka jira deegaanada miyiga iyadoona tilmaamtay in iyaga iyo dhigoodaba ay isku dhaarsadeen sidii ay ugu istaagi lahaayeen soo afjaridda colaadahaasi daba dheeraaday. markii aan ogaanay waxa isku dhimanaya inay yihiin wiilasheedii markaan ogaanay waxa la isku haystaa inay yihiin waxaan jirin oo geed cidlaa iyo guri cidlaa iyo gab cidlaa ay tahay waxaan garanay inaan isku nimaano fikirkeena isku keensano aqligeena isku keensano annaga gabdho waa nahay oo raggu wuu naga aqli badan yahay balse aan fikirkeena iyo aqligeena inta mideyno aan wax soo saarno marka waxaan idinka rabnaa madaxweynaha iyo guddiga hogaaminayo inaan arrinkaa nala qabatiin nala qaabaysaan nala qaadatiin annaga waxaan naga soo baxay arrimo badan inaan tagno meel kasta oo la isku dilayo. inta kadib Maryan Cabdulle Guur oo kamid ah haweenkii shirka soo agaasimay ayaa waxay halkaasi ka soo jeedisay qodobada ay ku heshiiyeen haweenka labada beelood. qodobka koowaad in xabadda la joojiyo si shuruud la'aan ah. qodobka labaadna wuxuu yahay in la joojiyo wax kasta oo colaadda hurin kara ama caqabad ku ah nabadda. qodobka saddexaad in la isugu yimaado gogol nabadeed oo ay fidinayaan gabdhaha beesha reer qumis gogashaas oo aan lagu xiri karin wax shuruud ah meel kasta oo aan dhigayno oo aan inagu isku afgaranay waxayna gogashaasi u furan tahay qof kasta oo caqli saaxiib u ah oo ka tirsan beesha reer qumis oo ka damqanaya falka xun ee dhex yaala qoyskan dalka ha joogaan ama dibadda ha jiraan raggooda iyo dumarkooda u fidsan tahay waxaan idinka rajaynaynaa inaad macnaha nala qaadan doontaan qodobadaas insha Allah waxaan rabaa markaana waa furan yahay baalka waa iska furan yahay laakiin in nalaga hor istaago intaan ma rabno qofku wax noogu daray maahan. gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka beelaha ku kala abtirsada maamulada Galmudug iyo Xaman iyo Xeeb Xasan Xaashi ayaa isaguna waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan haweenka u soo istaagay joojinta dagaalada labada beelood ee walaalaha ah ee muddada dagaalamayay. anigu waa soo dhaweynayaa arinta reer qumisna waxay noqotay qof xanuunsan oo xanuun daran uu hayo oo og inuu xanuunsan yahay haddana aan qaadanayn talada uu dhakhtarku siiyo
ama daawada dhakhtarku siiyo aan qaadanayn oo kale noqdeen way og yihiin in dhib jiro marka la wada hadlayo gudnimada way dareemayaan inay isgumaadayaan in asaagood wax baranayaan wiilashoodii dadkii la midka ahaa kuwoodii inay gaanariyaal ka dhigeen marka goobaha la iskugu yimaado way wada qiraan laakiin nasiib darro ficil ahaan waxba kama fuliyaan macnaheedu marka waxay la mid yihiin qof xanuunsan oo aan garanayn inuu daawada ka qaato dhakhtarka mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa afayeenka maamulka xaman iyo xeeb maxamed cumar jimcaale hagafey oo goobtaasi ka sheegay in haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada islamarkaana looga baahan yahay inay u istaagaan daminta colaadda raagtay ee u dhexaysa labada beelood ee diriska ah ugu dambeyntiina waxaa shirka soo xiray madaxweynaha maamulka xaman iyo xeeb maxamed cabdulaahi macalin aadan tiicay isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan go'aanka ka soo baxay kulamadii ay haweenku yeesheen islamarkaana ay ku garab taagan yihiin haddaa colaadii fogeyseen nabadana waa fogeyn kartaan marka taas horta waa aaminsanahay annaguna waxaan qabnaa inaan la shaqeyno waxa soo harata gogasha waxaan aaminsanahay meel walba oo gogasha ku dhigtaan diyaar aan nahay haddaad tiraahdaan cadaadaan ku dhigaynaa waa diyaar idin nahay inaan idin facilitate gareyno haddaad tiraa gaalkacyaan ku dhigaynaa diyaar aan u nahay in ximani xeeb meeshii la geeyo haddaad tirahdaan meel dhaxaan ku dhigaynaa waxaan qabaa in meel dhexe meeshii aad u garataan lagu dhigo kulanka magaalada Cadaado ay ku yeesheen haweenka ka soo kala jeeda beelaha Galmudug iyo Xaman iyo Xeeb ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xiisadaha colaadeed ee ka dhex jira beelaha walaalaha ah ee ku kala abtirsada maamulada Galmudug iyo Xaman iyo Xeeb oo muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareerayay iyadoona ay jireen ugaas iyo waxgarad isku howlay sidii u damin lahaayeen xiisadaha colaadeed balse ka guul gaari waayay Mukhtaar Xuseen Maalin telefishinka caalamiga ee Royal Studio magaalada Cadaado.